caliyo maanta haddii lagu idhaahdo waa maalintii noloshaada ugu dambeysay oo lagu idhaahdo waad dhimanaysaa maxaad samayn lahayd maanta haddii ay ahaan lahayd maalintii ugu dambeysay loodhan waad tagaysaa la odhan lahaa haba ma hadhin waa ugu dambayntii iyo wallaahi horta arrintaas waa arrin cajiiba ma cuntaad sheegi lahayd talo mise maxaa kulley anigu waxay ila noqon lahayd xagga la tegaya waa aakhiro ilaahay baa la hortegaya subxaana wa tacaala soo maha ilaahayna cunto badan baad soo cuntay iyo waad soo raaxaysatay waxaa lagama dhaylaagtiisa moogtay waxaan samayn lahaa ilaahu khaatimada khayr noogu khatim baa layidhi masaajidkaan geli lahaa sujuud baan ku dhammaysan lahaa wakhtigayga iyo tadarruciyo ilaahay subxaana wa tacaala inaan u toobad keeno istikfaar weydiisto insha allahu sidaas bay ila noqon lahayd iyo inaan wixii aan soo kharribay cafi iyo saamax idhaadee dadka moogta halkaasay taasi iga dhamaataan marinaya wallaahi wax la yaab badan bay noqon lahayd maalintii nolosha kuugu dambaysay waa maanta lagu idhaa waa wax la yaab badan yaa horta kolley waa su'aal fiican weeyaan marka waxaan samayn lahaa horta dad haddaan isku dhacnay jiraan waan soo raali gelin lahaa waan dad aan isku khilaafnay hadday jiraan waan la heshin lahaa sax marka ku xigtana halka ilaahay baan u noqon lahaa gurigii ilaahay baan tegi lahaa marka sasaan samayn lahaa aniga kolley la ii sheego cibaadadu ma badin laata ya dhammaadka dunidu waxaad waajahaysaa maxaa wixii ka dambeeya aakhirin baad waajahaysaa su-aalo badan baa ku hor yaalla oo ah dee dunida intii aad joogtay maxaa aad soo qabatay oo wixii lagu faray aad cibaadada ya wixii ka tag lagu yidhaa intaad ka tagtay dunuubtaadii xisaab baad la kulmi doontaa markaa dee mar walba dee dunida markaad joogto waa inaad ka xisaabtantaa xisaabtaa kaa hor iman doonta aakhire markaad tagto marka way kugu dambaysaa laydhaana dee dadaalkii ugu dambeeyey maalintaa intaad samayn karto baad samaynaysaa aad xisaabtaada ku wanaajinaysa dadka horta marka koowaad waxaan kordhinay saamaxa iyagana waan saamaxi lahaa waxaana samayn lahaa masaakiinta sakan siin lahaa acmaal khayrna waan shaqaysan lahaa tasbiixdana waan badin lahaa hadday noqon lahayd maantadii ugu dambeysay runtii anigu waxaan tegi lahaa xajka way hore xajkuba tegin marka markuuma qaban lahaa dee waan tukan lahaa waan cibaadaysan lahaa anaa dib isu xisaabi lahaa waxyaalayaa soo sameeyo dhan hadday noqon lahayd maalintii noloshaada ugu dambeysay toobadkaan badin lahaa ummaddana waan wada saamixi lahaa anigana i saamaxaan odhan lahaa wixii deyn igu leeya iyo waxaan deyn ku leyna waan qori lahaa dardaaran carruurtaan uga tagana waan qori lahaa wallahi waa su-aal aad u adag laakiin maalintaa oo dhan masaajidka ku jiri lahaa 24 saacadood maalinta ka kooban tahay masaajidku ma ku jiri lahaa cibaadada ayuun baan badin lahaa wallaahi waxaan samayn lahaa dee shahaadaas fiican u qori lahaa dee weliinta horsii duceeya oran lahaa kow waa talabaad dadkii ay xumaan naga dhexeeyeen calool xumo isku soo haynay amba soo qabsano amba marka maas qabsano amba dee aduu aan isqabsantina amba dee calool xumo naga dhexaysay dadkana waxaan rajayn lahaa amba aan samayn lahaa dee inay saamax inaaguma ka dalbado saamax iyo wixii dee karaankayga ah daqiiqadaha dee noloshada ka hadhay kuley salaad badan soon badan ducadan badsado dadka oon dee maxaan ku dhahday iska kay saamaxa idhaahdo iska saamaxo
كل ده حاجة عماشة خير ما نقعده حاجة عماشة شرك ما ديسك حده وف كل اللي يلوى دمنا صادق كل حاجة آخرون بو عرايا حاجة أدوين بو إيه يعني والله صلاة دي فرق إلهي مثل يا إلهي بريدي يقول بدل العيد إلهي يدم بداف إلهي يدم بداف إلهي يدم بداف بحكرات سمي سمون بنانا ده Obviously, I'll spend it on the masjid most of the time. Yeah, that's all. I will spend it on the masjid and do all my dua. أنا نقطة أو مثلاً وحي عبادة أنت كمان كران قبته وحي أن خصوصته مع حق ده يقوليه إنما مثلاً أنا سيدك ده يسيق أرسل دي دين اللي يقوليه ما دي دردارن اللي قاله وحي دردارن الله وقبته يوم مثلاً أنت كلام مثلاً هو وعبد ربك حتى يديك اليقين كل يوم أنت سأل مرة لا يعني مثلاً إلى قد بون كبرنا الأمنية الأهم من هذا أن الواحد يموت وهو ساجدا لله سبحانه وتعالى. إذا حسن الله الختام فتعتبر أنك فلحت في الدنيا والآخرة. فهذا هو الغاية والأهم. فحسن الختام هو الشيء الوحيد والأمنية الوحيدة اللي أريدها أنا. وأريد أن أقابل أهلي قبل أن أموت. أهلي في اليمن والله يجمعنا على خير. نيو أنو ميل بنا أنو مية إنت ترى. صلاة دانقلو دكما بحين يا صلاة ما عبادة سنة أنا سمعين الله أنا ملايين دليل يورن الله إن صلاتكم on like so many things and إلهي يقول وهذا سمعين لها هذه ما أنت يقول بس نوش هذا حاجة مساجد كانوا عرب له كوري وايو ميل أرتنولش هذا مركو قدام بيساعد كل ما تروح يقول أحسن كوري إلهي كوري هذا كوري إلهي ودحترا هدي نفتو كاب أحلى نتشري قرآن كين من وش هيدا والجنة ما يلقف كاسي مركا عبادة على أنه كتير إنه نفتو كاب أحلى ما وقت قدام بيسين نقطة عيان تعلان لها إن شاء الله إلهينا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا taas oo laga wado adduunyada u shaqayso sidii qof loo sheegay inuu ku waarayo aakhirana u shaqayso sidii qof og inuu berri dhimanayo that means qofka loo sheegay inuu adduunyada ku waarayo maanta haddii ku dhaafto berri baad haysataa bislee kan laakiin loo sheegay inuu berri go'ayo there is no way uu waqtigiisa ugu ciyaaro salaam